madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jelle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaasi loogu soo bandhigay cayaaraha hidaha iyo dhaqanka ay leeyihiin dadweynaha Reesayla cayaarta caanka ku ah wadanka Soomaaliya ee iyadu caan baxday ee la yiraahdo Saylici iyada oo halkaasi dadka iyagu degan asal iyo isir ay leeyihiin cayaarahaasi la yiraahdo Sayliciga madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jelle Maxamed Siyaad Barre ayaa ka baxdi dadweynaha halkaasi isugu soo uray fagaar weyn khudbad qiimo iyo qaaylo uga jeediyay waana tan khudbadii صاحبنا مدحنا وكرسي وضعين معدنين إذا قلون ونو وكعاني مدى وصوباني مدى ووطني مدى ونفسه يقضي حدوات وصل ويسر سياسة فراها حسيقة فراها وزيرة دولة مثل برلمانك يددوينها كاليتو وصوماليين ميحان ويدكت أنا نوصل نقول دوري لكن نصيب هناك شعبك بدر ومانسا كانوا بيقولوا الصناعي سيدي لما الأولى من نقول رجعنا dadweynaha ku nool degmada tan iyo agagaarkeeda iyo qarankuba inay saylac wixii ay ahaan jirtay dib ugu celiyaan waxa lagu gaaraa bilaabo kan laga baaqay bilaabo waxay ku gaarsiisaa balse wuxuu qaranku fakaraayay ama kacaanku fakarayay saylac taariikhdeeda duqowday oo kuwii ugu taariikh dheeraa magaalooyinka gobolkan ama aaggan ka mid ahayd inayan sidaa ku baabi'in ee ay dib u dhisanto oo iyadoo leh sababo badan oo in la xanaaneeyo taariikhdaas laga maarmaan ay tahay waxa ku dhigan buugta adduunka taariikhdiisa saylac waxay kaga dhigan tahay baal bay kaga dhigan tahay marka waa dhici kartaa meelaha qaarkood in xoogaa hawada iyo loo marinayay noqon weyday ilaahay noo sii kordhiyo ilaahay ka baxay ka codsanaynaa abaartu inuu kacdo colaadu inay kacdo gacantooyadu inay soo noqoto wax qabsiga iyo ilbaxnimadu inay soo kacaan gunaanada ugu dambayntii allah inoo aqbalo midda kaleeto xasan guuled markii aanu meeshaan looyacadda markuu ikaan wuxuu yidhi musaan jamhuuriyad dalkii soo idin saylacna ka bilow madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jelle Maxamed Siyaad Barre kadib markii khudbadaasi qiimaha leh u dhameeyay dadweynaha ku dhaqan degmada Saylac ayuu u soo ambabaxay degmada Luuqaya isaga oo casar gaafkii soo galay degmadaasi Luuqaya madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jelle Maxamed Siyaad Barre waxa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda gobolka Awdal iyo gaar ahaan degmada Luuqaya waxaanu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida
madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa yar markii uu joogay degmadaasi Luqaya ayaa khudbad qiimaha iyo qayle waxa uu jeediyay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Luqaya isaga oo tusaaleeyay midnimada wax soo saarkooda inuu wanaagsan yahay oo tacabka wax soo saarka la kordhiyay isla markaasina ay muruqooda iyo maskaxdooda ay ku kalsoonaadaan أولاً وأيكون معدنا يا كبير مجلسة وفي مجلسة ودويسة ونوصل كم وقت يتعلم هذا الدنيا يتعلم هذا يتعلم هذا هي هذا الشهر معنا وأنا كم سايتقولي هي وأنت كان كم إذا مثل وأنت كان كم إذا مثل تقولي كأمر ما أنت كان kadib markii madaxweynaha iyo wafdigiisu ay soo dhamaysteen kormeerkii ay ku marayeen degmada Luqaya ayaa habeennimadii waxa uu hoydeen magaala madaxda gobolka Awdal ee Baki iyagoo aroornimadiina ka soo baxay iyaga oo ku soo jeestay dhinaca magaalada Boorame magaala madaxda degmada Boorame madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayay degmada Boorame waxa loogu soo dhaweeyay si aan la malayn karin oo xiisa iyo kalgacal leh iyaga oo si aad ah u sugayay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Boorame wafdiga uu madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed uu hogaaminayo Jaale Maxamed Siyaad Barre iyaga oo qornaayeen wadada xiriirheeda waxa ka caanka ayaa iyaguna sidoo kale waxa ay lulayeen calaamada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya iyo ka xisbiga iyo sawirka madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre degmadaasi Boorame markuu yimid intii aanu soo gaadhin magaalada Boorame ayaa halkaasi waxa uu ku gacan qaaday madaxda iyagu degmadaasi Boorame iyo isla markaasi madaxda ciidamada qalabka sida isaga oo hal u gacan qaaday madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayo markii ay magaalada Boorame yimaadeen waxa halkaasi ubax qoorta u sudhay oo heesaha aad u qiiro leh iyo ku soo dhaweeyay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Boorame iyada oo run ahaantii uu madaxweynuhu si aad iyo aad uu uga helay soo dhaweynta degmadaasi Boorame idinka oo imika daawanaya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Siyaad oo isagu baabuurkii uu saarnaa ka dhigay markaasina dadweynihii dhex lugaynaya oo isagu gacan qaadaya dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan ka bacdina markaasi isagu u koray baabuur dul furan oo isagu uga gacan haadinayay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi Boorame oo wadada xiriiraheeda iyo gudagana madaxweynahana ku soo dhaweynayay eraya aad iyo aad uga muuqato wadaninimo iyo kalgacayl khushuuc leh
kadib soo dhaweyntaasi la yaabka lahayd ee degmada Boorama madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Maxamed Siyaad Barre intii aanu khudbada halkaas ka jeedin waxa isagoo xog waran booqashadii Jabuuti ka soo jeediyay warbixin gaaban wasiirka xanaanada xoolaha Muuse Rabiila Good oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay degmada ama hooyada gobolka Awdal waa salaamantii aad ayaan magacayga magaca guddiga aan safarka wada ahayn midka golaha dhexe xisbiga kan golaha wasaaradaha wasiirada iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee aan magacoodii sidnada idinkaga mahadnaqaya sidii diiranayd oo xaadada walidiinahay oo qofkii xataa bukeeye kii duqoodada oo bannaanka imaada aad u noolayd nolol cusub ugu abuuri jirtee aad iyo aad baan idinku mahadinaya xaqiiqadii dadka muxuu ahaa markaan ka soo bilowno degmada sayda lugaye bakti oo meel bannaana weli ah iyo Boorame oo aad u xayiisay allah u sii kordhiye waxaanu la kulannay ama nalagu soo dhaweeyey xamaasad wadaniya kacaan ah sabxataa xalaal quudashaa isla markaasna ciidankii aan mushaarka qaadan jirin laakiin hooganka markasta oo ahaa daafaca waddanka ummaddaasaan la soo kulannay xaqiiqadii waxay noqotay wax faa'iida oo laga kulmayey sinaba laga helay laakiin khasaaradu ay qabto kunayaal Soomaaliya iyo Itoobiyaana oo dhiigoodu maxaabada u dhaafay anaguna iman ay gudda laga xukumo arrintu waxay tiri annagu marka toos mawlada calalaa oo wixii danteena maka wada su'aalku waxay laga mansuur tahaa sababta in la garto markaana baara halkii lagaga bixi lahaa ilaaqda araa dadka labada wadan isla markaasna way kuma jiro kollayga kuweynu aan isla ognahay kuweyniya waa aqaloodu in badan meesha ay ku yaaliin haddana wixii ay majisooniyaan xiriyo oo gacalkooyadaaya si fiican loo soo dhaweeye ayaa loo baahay baadisiga dabitaan waxaa jiray madaxda guddigeena ninka
madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayo kamid ahaan wasiirka xanaanada xoolaha Muuse Rabiila Good wasiirka madaxtooyada Jale Cabdilaahi Axmed Cabdi wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda Maxamed Xaashi Cigaal wasiirka xigeenka wasaaradda beeraha Maxamuud Cabdi Nuur wasiirka xigeenka wasaaradda hidaha iyo tacliinta sare Yuusuf Cabdi Ibraahim Columbus maareeyaha caymiska qaranka xildhibaan Cabdilaahi Gacal iyo xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Maxamed Aadan Qaybe markii degmada Boorama ay ka yimaadeen waxa uu soo ambabaxeen dhinaca degmadaasi Gabiley iyaga oo ugu soo hormaray magaalada Kalabayda halkaasi oo madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigiisaba si xiisa iyo kalgacal oo lama ilaawaan loogu soo dhaweeyay iyada oo dadweynaha iyagu ku dhaqan magaaladaasi Kalabayda iyo agagaarkeedu aad arkaysiin iyagoo wadada hareeraheeda safnaa iyaga oo lulaya caleemo qoyan iyo calanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxa uu halkaasi ka furay bilowga wada dheer oo isku xiriirisa magaalada Kalabayda iyo magaalada Boorama ama degmada Boorama oo dhererkeedu u leeyahay 43 kiiloomitir halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay sidoo kale wasiirka hawlaha guud iyo guriyeenta Dr. Cabdiqaasim Salaad Xasan Naxis iyo xogeyaha guddiga xisbiga ee gobolkaasi Waqooyi Galbeed iyo madaxda kale ee gobolkaasi Waqooyi Galbeed madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jale Maxamed Siyaad Barre meel kasta uu tago intii uu kormeerkaasi ku mariyay gobolada Waqooyi iyo kuwa dhexe ee dalka Soomaaliya waxa si xiisa iyo kalgacal ugu soo dhaweeyay madaxda iyo dadweynaha iyagu goobahaasi ku mariyay iyagu jooga madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre waxa uu halkaasi magaaladaasi Kalabayd uu ka jeediyay hadal gaaban oo uu ku tilmaamayay waxtarka iyo ahmiyadda isgaarsiintu ay leedahay gaar ahaan dhinaca wadooyinka taasi oo uu sheegay madaxweynuhu inay faa'iido weyn ay ugu jirto dadweynaha ku dhaqan agagaarka magaalooyinkaasi isku xidhaya ama degmooyinka isku xidhayo oo aad Gabiley ilaa iyo Boorama waxaana uu ku gubaabiyay dadweynaha iyagu ku dhaqan goobahaasi ama meelahaasi uu marayo jidkaasi inay qayb weyn iyo gacan xoog leh ay ka qaataan taabagelinta iyo dadejinta wadadaasi iyada oo sawir qaadayaasha telefishinka Jale Kawunda iyo Basale sidoo kale ay inta diyaaradaha qumaatiga oo ka helicopterka intay raaceen ay guud ahaan imika inoo tusayaan daafiyaha iyo sida madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed loogu soo dhaweeyay hareeraha wadooyinkaasi oo marayay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayay markay magaalada Kalabayd soo dhaafeen oo ay laamiga ka soo koreen ilaa iyo magaaladan Xamar isku xidhiiriya ilaa iyo Kismaayo wadada hareeraheeda degmada Gabiley waxa tubnaa dadweyne aad iyo aad u tiro badan oo madaxweynaha u soo dhaweeyay si lama ilaawana waxaana dadweynahaasi isugu jireen ardayda dugsiyada ururada bulshada iyo dhammaanba dadweynaha iyo ku dhaqan degmadaasi Gabiley iyada oo run ahaantii taasi ay ku noqotay xusuus gaar ah madaxweynaha iyo wafdiga uu hogaaminayay iyo madaxdii kale ee la socotayba waxaana imika daawanaysan degmada Gabiley markii uu soo galay madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdiga uu hogaaminayo oo si xiisa leh loogu soo dhaweynayo magaaladaasi Gabiley iyada oo markii uu soo galay madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jale Maxamed Siyaad Barre isla magaalada Gabiley gudaheeda u yimid iyada oo ilaa iyo 10 kiiloomitir lagaga hortagay madaxweynaha oo wadada hareeraheeda la safnaa madaxweynuhuna uu gacanta u lulayay dadweynahaasi tirada badan leh oo markii uu soo gaaray gurigii loogu talagalay oo halkaasi loogu soo dhaweeyay madaxweynuhu ka bacdi uu ka qaadan doono salaan sharaf cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida
madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre soo dhaweyntaasi kadib ayaa halkaasi intii aan u khudbadeen waxa ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta 26aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed xildhibaan Sareeye Guuto Maxamed Xaashi Gaani isagoo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ku soo dhaweeyay mikrofoonka inta markaan ka gudbo lagu abuuraysaa shucuur aadiya wixii warbixinaha ula jeediyey wasiirka wasaaradda wasiirka Jaale Maxamed Siyaad Barre xogayaha guud ee Soomaaliya muxuu ahaa dalal saaxiiba dalal muxuu ahaa bani-aadamna xaggeed dad baa raacaya inay u gurmadaan waxa ujeedadu waxa weeye mar kastaba afrikaan inaan la sugin gacan hoorta inaan la sugin in muxuu ahaa hay-adaas la shaqogeliya iyaduna ay ku shaqaysaa madaxweynaha dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre markii booqashadii kormeerka ahayd ee uu ku joogay degmada Gebile ay u dhamaatay ayaa hadda waxaad arkayseen sawir-qaadayaasha telefishinka oo iyagu guud ahaan iyagoo diyaaradda qumaatiga u qaaday helikobtarka layidhaa la socda iyagu nooga sarwiray guud ahaan magaala madaxda gobolka waqooyi galbeed iyo agagaarkeeda waa magaalada Hargeysa iyada oo kooxda telefishinka diyaaraddaasi iyaga la soo saaray madaxweynaha ummadda Soomaaliya Jaale Siyaad iyo wafdiga kale oo hogaaminayay madaxdii kale ee gobolka waqooyi galbeedna ay soo mareen wadadaasi isku soo xidhiidhisa Gebile ilaa iyo magaalada Hargeysa
madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Maxamed Siyaad Barre waxaa la socday ilaa iyo booqashadii ay ku tageen magaalada Jabuuti wasiirka xanaanada xoolaha Musa Rabiila Goot wasiirka madaxtooyada Cabdilaahi Axmed Cabdu wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Maxamed Xaashi Cigaal wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha Maxamuud Cabdi Nuur wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare Yuusuf Cabdi Ibraahim Columbus iyo xildhibaan Cabdilaahi Gacalo maareeyaha caymiska qaranka iyo Jaale Axmed Maxamed Aadan Qaybe iyada oo magaalada Looyacada ee magaalada Jabuuti 12 kiiloomitir u jirta oo halkaas ku soo dhaweeyay taliyaha qaybta 26aad ee xoogga dalka Soomaaliyeed isla markaana gudoomiyaha maamulka ee gobolkaasi waqooyi galbeed xildhibaan sareeya guuto Maxamed Xaashi Gaani idinka oo ilaa iyo hadda daawanaya sawir qaadayaasha telefishinka Soomaaliyeed Kawnda iyo Baasale oo magaalada Hargeysa dusha inooga sawiraya madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre iyo wafdigaasi ballaaran ee uu hogaaminayay meel kastoo ay tagaan basaxiisa iyo kalgacal ayaa loogu soo dhaweynayay waxaana magaaladaasi Hargeysa imika dusha aad ka daawanaysiin markii madaxweynaha iyo wafdigiisu ay yimaadeen loogu soo dhaweeyay si la iyo ama kaab noqotay iyada oo ilaa iyo dhowr iyo 20 kiiloomitir dadku ay safnaayeen guriga madaxweynaha loogu talagalay guriga dawladda ee magaalada Hargeysa ku yaala iyada oo gabdhaha magaaladaasi Hargeysa ay soo labisteen dharkii hidaha iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ay lahaayeen si cajiibana loogu soo dhaweeyay madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre ayaa markiiba waxa uu soo gaaray degmadaasi Hargeysa iyada oo ay hor socdaan ciidamada nabadgelyada wadooyinka ee traffiga la yiraahdo iyo madaxda gobolkaasi oo iyaguna la socday isla markaasina tilmaamo ka bixinaya sida dhulku uu yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxda degmadaasi Hargeysa iyada oo halkaasi ay ku sugayeen ururada bulshada ciidamada qalabka sida waxaan halkaasi ubax aad u qurxoon iyagoo qorto u galay ubaxa kacaanka ee degmadaasi Hargeysa oo halkaasi saxiisa iyo kalgacal leh madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Siyaad u soo dhaweeyay ciidamada qalabka sida saraakiishooda sarana ay halkaasi iyaguna ku soo dhaweeyeen oo hal marka ay salaamaan oo gacan qaaday isagoo mid kastaaba magaciisa iyo darajadiisa sheegay waxaanu halkaasi madaxweynuhu salaam sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida
jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre intii uu joogay magaalada Hargeysa waxa uu ka furay garoon weyn oo caalami ah oo diyaaradaha ugu waaweyn adduunku ay ku degaan kaasi oo lacagtiisa ay ku baxayso 1 bilyan iyo 20 milyan oo shilinka Soomaaliga isaga oo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed Jaale Maxamed Siyaad Barre saxiisa halkaasi ay ugu soo dhaweeyeen madaxda qaranka oo iyaguna ka timid magaalada Muqdisho oo gobolkaasi waqooyi galbeed isla aroortaasi yimid sida aad u daawanaysiin waxaana halkaasi saxiisa oo kale ugu soo dhaweeyay gagadaasi dayuuradaha ee caalamiga ee magaalada Hargeysa ubaxa kacaanka Oktoobar ee degmada Hargeysa
markaynu aad fidnada ugu jirnay dabaaldegii dhacay aad buu u ballaara laakiin been buu sheegay gamaantu run buu ahaa niyada dadkaa ka garanay aad iyo aad baan idinku maadinayaa saaxiibada aan wada soconayo xilka ama kormeerka aan ku wada jirnay magacooda iyo qaranka soomaaliyooda meelu jiraba uguna qabtaan waxyaalaha ay u baahan oo aan hawshaay lagu joog maanta waxa weeyaan wada jir ahaan oo inaga baahday muddo inagoo meelo baas oo kala duwan ku sii jirta waxa weeye dhismada adduunku meel ma taagnaa annagu inaanu meesladii xolay taagnaano oo binaadamka ay ka guureen wixiisa isagaa qabsada gurigiisa isagaa wadada kaxaaqada isagaa xoaha dalihiisa isku taxbusiyo fadhiista intii kaleeto ama saaxiiba amaa kaalmo hoose laakiin wixiisa isagaa qabsada waynu garanaynaa markii horeeto sidaynu u dhaqaaqnay waynu garanaynaa markii dabaskii iyo sixi hadda sixi baynu ku soo noqonay saxaabku waa inuu dhalaa inaynu qaninimo iyo ku dhaqaaq waa minaysaanta marka saaka shirka halkaa ku shirsanahay maaha mid beenbeen iyo hado waxa weeye mid aynu ku dhisanayno aynaboor caalami oo aynu doonayno dayuumaha kuwa ugu waaweyn inay ku soo degaan oo dadena ama socod xawli dheer xawli adag xawli dheer qolada marka inaynu inagu laga tegay maalinkai ma gaari aynu la gaarno aan ku dhaqaaqno marka xigta wixii aynu horay wax badan baynu ku gaar waxay dareemayaan waa inaad caqli baadeedo ilaahba caqli ku siiyey waa inaad heshaa waadiico aad ogaadaan mool xaggaasay sheekada marka ayno waaxidee naga saar ilaahu suufka naga saar ilaahu suufka dalkeena na garanti ilaahu awoodda aad nasiisoon amoon weynay dib noogu soo xeli doona haddii alla ifahama diro jiidkaas iyo doolaan isku xirmo iyo wax kale duruusi karto iyo hesho ku filan waxa weeye barbare inay hesho biyo ku filan waana socda waxa weesho wuxuu ahaa nal ku filan dab ku filan koonto ku filan oo aan ahayn guryaha inay dab waayaan oo arrinta kale waxa weeye annaga intaan soogasugun dadka dubuuladaas dubuulka sina inay lahayn iyo runa dawlad iyo shacbi iyadana waxaanu ku heshiinay inaanu bulsho iyagana waxaan ku heshiinay inaanu nidhaahno dex socod gooy waanu ku heshiinay intaasu waa nucruskii naafnaadkii waxa weeyaan ka turjuraan aan ka turjuraani karno dadka diyada dawladda diyada oo madaxweynaha alxaaji xasan jumhuuriyadaas ka gacantooyo qofka warsaanba faraanta iyo gacantooyada lagu turjuraani yaani ka codsanaya intaa markaan ka gudbo waxaan loo baahanya waynu garanaynaa markii mar aynu inagii wax qabsan waynagii gacaankii bilownay inaanu dalteena ku bilaabno waxaynu ku tashanay war aynu isku tashanno oo nafteenna aamino oo ilaahayn aamino oo dalkeena iyo dadkeena aamino oo dhibaatada in haysa oo gaajada iyo cudurkii jaahilada aynu ka baxnayno wax badan baa inoo qabsaday socdaake kala finaala waa nicmo wato
barnaamijkaygii gaarka ahaa ee ku saabsanaa kormeerkii madaxweynuhu ku soo maray gobollada waqooyi galbeed iyo awdal annaga oo kuwii kalma hadda ka bacdi si xidhiidha idiinla socodsiin doona intaas ayaanu ku soo gabagabaynay halkan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo aniga oo ila jooga bisdiisa ilaa xiriga ku hasheen markasta xiriisi saadkii umara ku imaanayaan adiga ana haynaay wixii lacag yaa lagu imaanay aniga digu imaanaysa okay diyaar ana kalle waxa iga bartay سحر ما دي سيسي